codod iyo maaragtay muuqaallo laakiin waxaan soo horreysiinayaa insha allahu tacaala maanta cododkii baan soo horreysiinayaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على رسول الكريم إلهي بما الله سبحانه وتعالى حلينا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلهي بما الله سبحانه وتعالى الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. إلهي سبحانه وتعالى ينسون إليه لمشنا ذانا كذب ما هذا إلهي بأسكاله سبحانه وتعالى وسوحنمو والسبتة بشا لباد كن كوي لاتنكا وسدحي طبعا بشا لباد كن كوي لاتنكا waxaan ballan qaaday insha Allah ta'ala maalinka sabtiga in aan soo bandhigi doono bidnillahi albaari codod iyo maaragtay muuqaallo laakiin waxaan soo horreysiinayaa insha Allah ta'ala maanta cododkii baan soo horreysiinayaa dadka dhaalimiinta ee maaragtay ummadda muslimiinta ee ka nabadgalila in maaragtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay fashiliyo hagadaamada ay u maleegayaan ummadda muslimiinta ama waxaysan ahayn ay iska dhigayaan insha Allah ta'ala ballanqaadkaasina waxaa sameeyay habeenkii jumcaha oo 6 saac oo habeenimo ay tahay inkastoo dadka qaar ee muuqaalka ay live-ka soo galay habeenka siyaabo khaldan ay u adeegsadeen laakiin noocaad u adeegsateen ma ahan muuqaalka ama live-ka soo galay inkastoo maaragtay aan uga hadlayay cilaajlayda guud ahaan si gaar ahaan maaragtay ummadda muslimiintana oo si guud ahaan aan ugu dirayay maaragtay fariin iyo waano si gaar ahaan aan la hadlayay dadka mucaalijiinta ah khaasatan ba ashkhaas muayyan ah ee aan ugu talagalay ummadda muslimiinta ee maaragtay dhibaatada ay ku wadaan iyo maaragtay waxaysan ahayn iskaga dhigaya in maaragtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ee banaanka keena baan ugu talagalay marka waxaan Ilaahay ka baryaa subhanahu wa ta'ala dadka ayaga fariinta aan u diray maaragtay xaqiiqatan muuqaaladina ay daawadeen ama ay fiirsadeen xaqiiqatan hadalladii aan ku hadlay habeenka ay waxa kamid ahaa inaan iri haddaadan ka noqon ama maaragtay aad raaligelin aad ka bixin waxyaabaha samaysay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ceebtaadu banaanka keeni doona waxaadna tiri maaragtay Allahu musta'an in aad aniga iyo maaragtay teamka ee daarutooba ka shaqeynaya waxaa tiri in oo aan ka shaqeynayno inaad maaragtay aad ka shaqeynayso maaragtay lugooyadooda iyo maaragtay sidaadii aad sheegtay inaad fashiliso waxyaabaha aad samayso xaqiiqatan waxyaabaha aan sameynay ama fashil u baahan ma jiro marka ummadda muslimiinta ah waxaan saakaan maaragtay la wadaagi doonaa insha Allah ta'ala bacda alquran aw yasin gaariga noo hadaawi daniga bareelaha soo saar ee keen quraanka keen xaqiiqatan ma ada waxaan taaganahay ama meesha aan taaganahay waxa waa xaruntii cilaajka marka dadka ayaga ee aan fariintaan u diray hadii maaragtay aydan ka noqon baan ku yiri maalinka sabtiga inta la gaarin xaqiiqatan waxyaabaha tahay iyo waxa aaminsan tahay intaba ummadda muslimiinta baan u soo bandhigi doonaa insha Allah ta'ala marka xaqiiqatan waan waayay in maaragtay aad ka bixido raaligelin aad ka bixido ama aad ka noqoto qaladka ee adiga aad gashay kamaadan noqon qaladkaagina maadan qiranin لكن ما أنت إن شاء الله تعالى وحن صهر مرين دونا عضد كاجي بنصهر مرين دونا بإذن الله الباري عضد كاجي فما أنت صهر مرين دونا مركب كواد عد كواد بنصهر بندقي دونا مرلبات عد كلابات بنصهر بندقي دونا مركز سدحاد عد كي سدحاد وأضيقها وذاتك ضدك قرآن مني ومدى كافك الله ما رأيتها هيلب كودي أدعونا إسا عد كاجي بودن بنسين دونا لبدا عد كلا وحن أصهر مرين وح كلامهن وحن قلت لك أدو إنك تعبر قاضته هذا ku cibra qaadanina waxaan soo bandhigi doonaa codkaaga oo rasmiga ah marka u dambeydana waxaan soo bandhigi doonaa videogii ee aan isloogeen aniga adiga
iyo maaragtay raggii kale ee markaa goobjoogga ahaa baan soo bandhigi doonaa insha allahu tacaala videogii waad garanaysaa anigana waan garanaya ilaahayna uu garanaya dadkana la joogayna way garanayaan haddii aadan ka waantoobin ama aadan qaladkaaga aadan qiran ama aadan raaligelin ka bixin waxaa ballan igu ah waa subaxnimo sabti ah 13 taariikhda bisha labaad waxaa ballan ilaahay igu ah waxa adigu aad tiri ninka meesha waxa ku hayo waa indha sarcaad waa maaragtay beeri barbagaando waxaan halkaa u fadhinaa inaynu fashilino waxaa ballan ilaahay igu ah oo ballan ilaahay igu ah haddii aadan qaladkaas iyo maaragtay hadalladaas ee lagaa soo duubay aadan raaligelin ka bixin oo weliba aadan iman xarunta ama dadka halkaa jooga dadka adiga aad quraaminayso haddii aadan u qiran oo aadana dhihin waan qaldamay ninka isaga ah ee maaragtay wadaadka halkaa jooga khalad baan ka sheegay ha iska kay cafiyo oo aadan weliba facebookyada iyo youtube-yada aadan ka soo hadleen waxaa ballan ilaahay igu ah 3 cod baan kaa hayaa 3 cod labana waxa weeye waa dadka adiga kula shaqeeya ee aflagaadeysmayaan midka saddexaadna waa adiga inta haddaad ku cibro qaado weydan waxaa weeye waxaan soo dhigi doonaa insha allahu tacaala videogii adiga iyo aniga iyo ilaaha iyo dadkii markaa goobjoog ahaa hadday noqoto dadkii meesha lagu quraaminayey iyo hadday noqoto dadkii markhaatiyaasha ahaa inaan soo bandhigabaa ballan ilaahay igu ah in badan baan kaa gaabsaday in badan baan kaa aamusay laakiin waad garan weydey inta lagu dulqaatay ee lagu aamusay waad garan weydey anigu waxaad doonto waad iga sheegi kartaa laakiin ummadda muslimiinta inaad khalado marnaba raalli kaagama noqonayo marnana kuguma dulqaadanayo ummadda muslimiin baad qaladay dhaalim baa tahay oo ummadda muslimiinta la goynaya waxaad u baahan tahay in ummadda muslimiinta lagaa qabto insha allahu tacaala waana lagaa qabanaya gacan birna oo lagugu qabanaya biidni illaahi albaari gacan aanan gacanteenan ahayn baa ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu qabanaya laakiin annaga waxaan awoodnaa afka inaan ka sheegno wax allaala wixii asraar adiga lagaa hayo inaan faafino ummad aan la wadaagno bay anagu awooddeena tahay insha allahu tacaala dhammaan walaalaha muslimiinta khayr badan allah idin siiyo ummadda ha loo sheergalay biillahi albaari muuqaalka ee live-ka aan soo galay habeenkii jumcaha dad badan baa si qaldan ay u qaateen laakiin dagaalkayaga iyo muuqaalkaasi ani aan soo duwo weligayga umaanan hadlin si taargad umaanan hadlin si sarbeeb baan u hadlaa ama maaragtay maldahan baan u hadlaa saakin laakiin sheekadu mar bay dhaaftaa maabaalu aqwaamin qoom xaalkoodu suu yahay sida waa nabiga calayhi salaatu wasalaam ee khudbadiisa ahaan jirtay laakiin sheekadu mar bay dhaaftaa maabaalu aqwaamin saaka waxay taagan tahay farfiiqid bay taagan tahay insha allahu tacaala waxaan geli doonaa biidni hilbaali qur-aankii ragga baan geli doonaa waana soo bandhigi doonaa insha allahu taala saacada kadib biidni hilbaari qof walba muslima muuqaalka ee lagu soo bandhigayo asraarta ee tirada badan ee nimanka mucaalijiinta qaar ka mid ah ee laga hayo nimanka ayagana waad garan doontaan isagana u isgaranaya biidni hilbaari hada wabillahi tawfiiq